السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني waa Arabsay News taawada ku soo dhawaada warkii xilligan Arabsay News qodobada aan ku soo qaadan doono waxa kamid ah xukuumadda Soomaaliland oo ka jawaabtay waraysi uu bixiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore dalka Soomaaliya Mahdi Guuled kaasi oo idimo u jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dalka Mareykankana haweeneydii ugu horeysay ee Muslim ah ayaa loo magacaabay garsoore heer federaal dalka Shiinahana waxa lagu eedeeyay inuu geysto weerar dhanka internetka ah isla markaana uu jabsaday kombiyuutarro kumanaan gaadhiya daawada qodobadaasi waxay ka mid yihiin kuwan idin haynay ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwa kale faahfaahsan muwaadin noqon mulkiile beeraley ah adigoo saami ku yeelanaya sharikadda beeraha ee Roobroon ka soo qaybgal soo bandhigga saamiyada sharikadda Roobroon iyo nidaamka beeralayda loo maalgelinayo dhaqaalaha Soomaalidu boqolkiiba 5.7 waxa uu ku tiirsan yahay beeraha iyo xoolaha sharikadda Roobroon ayaa daboolaysa baahida warshadaha daqiiqda iyo saliidda ay u leeyihiin sarreenka iyo midhaha saliidda Roobroon waxay abuuraysaa kacdoonkii ugu weynaa ee wax soo saarka dalka iyo kobcinta dhaqaalaha noqo beeraley adigoo jooga adduunka dacaladiisa soo gaar roobroon.com waa haddii aad ku sugan tahay dalka dibaddiisa ballanteennu waa 19 Juun maalinta Isniinta ah 9 aroornimo iyo hotel Guuleed xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay waraysi uu bixiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya ee xukuumaddii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Mahdi Guuled oo toddobaadkii dhammaaday waraysi bixiyay ayaa idimo u jeediyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi laakiin wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caataye Fariid oo qoraal ku baahiyay bartiisa Twitterka ayaa sheegay in Mahdi Guuled uu ka tirsanaa xukuumaddii Farmaajo oo muddo 5 sannadood ku foganeed inay dhibaateeyo Soomaaliland laakiin awood u weeday ilaa haddana uu ninkaasi aaminsan yahay in xukuumaddii Farmaajo shaqaynayso Mahdi oo ka tirsanaa xukuumaddii Muqdisho oo 5 sannadood u dambeysay ku guuldareystay in Soomaaliland dhibaatayso ayaa waraysi bixiyay waxa cad in madaxdii hore Farmaajo uu ku lug lahaa khalkhalgelinta Soomaaliland ayuu yidhi wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland wasiirku wuxuu sheegay in loo baahan yahay in la ogaado in maamulka Farmaajo uu weli ka hoos shaqaynayo dowladda xilligan ee Soomaaliya ee hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan aad u xiiseynayaa inaan ogaado inaad weli ku hoos shaqaynayso maamulkaasi ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caataye Fariid golaha sanadka Mareykanka ayaa cod aad u yar ku ansixiyay garsoorigii ugu horeeyay Muslim ah ee xubin ka noqota maxkamadaha heer federaal ee dalka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xilkan u magacaabay Nasrat Judhari oo ka soo jeeda dalka Bangladesh Newrat ayaa xilal sare oo hore uga soo qabatay isbahaysiga u dooda xorriyadda madaniga ah ee Mareykanka ee fadhigiisu yahay gobolka Illinois iyadoo waqti dheer caan ku ahayd inay u dhaqaaqdo sinaanta dadka kala jinsiyada ah cadaaladda iyo amniga bulshada golaha sanadka ayaa ku ansixiyay 50 cod oo ka mid ah 100 mudan ee golahaasi halka ay diideen 49 mudane Nasrat ayaa fadhiisan doonta maxkamad degmo oo federaal ah oo ku taala New York gudoomiyaha aqlabiyadda ee golaha sanadka Jack Schumer ayaa Nasrat ku tilmaamay inay leedahay waayo-aragnimo sare karti iyo daacadnimo wuxuuna sheegay inay khibrad u leedahay xuquuqda madaniga taasina ay keeni doonto inay xirfadeeda ugu adeegto kursiga loo magacaabay ee heer federaal shirkad qaabilsan ammaanka kombiyuutarada oo laga leeyahay Mareykanka oo lagu magacaabo Mandiant
ayaa khamiistii sheegtay in koox abaabulan oo taageero ka helaysa dowladda Shiinuhu inay jabsadeen aaladaha kombiyuutarada ee boqolaal shirkadood oo caalamka oo dhan ku kala yaala, kuwaasoo ay ku jiraan hay'ado dawli ah iyo kuwa gaar loo leeyahay. In ku dhow 30% aaladaha la jabsaday waxaa iska leh dowlado kala duwan oo caalamka ah, kuwaasoo ay ku jiraan wasaarado arrimo dibadeed oo hayay shaqooyin muhiim ah. Charles Carmel oo ah madaxa farsamada ee shirkadda Mandiant ayaa sheegay inay tahay basaasnimadii ugu ballaadhneed ee dhinaca internetka ee ay qaaday dowladda Shiinuhu, waxaanu tallaabadan la fuliyey horraantii sanadkii 2021. Kombiyuutarada la dhacay ayaa gaadhaya 10,000 oo kombiyuutar. Shirkadda ayaa sheegtay in farsamooyin loo adeegsaday in loo dhaco aaladaha kombiyuutaradan inay sabab u ahayd kadib markii kooxdani ka war heshay inay qaar ka mid a ciwaanada iimaylada ee laga isticmaalo dunidu inay leeyihiin meelo sahlan oo ay fududahay in loo dhaco cidda adeegsanaysa ama kombiyuutarada lagu isticmaalayo. Kooxdan wax basaasaysa ayaa fariimo iimayla u diray hay-ado iyo wasaaradaha ay bartilmaameedsadeen. Mar kasta oo ay fariintaasi la furana waxay awood u yeesheen inay si qarsoon u xadi karaan macluumaadka ku kaydsan. Xogta ayaa tilmaamaysa in ururadaasi ay 55% ku yaalliin Ameerika, halka 22 ay ku yaallaan qaaradda Aasiya, 24% Yurub, Bariga Dhexe iyo Afrika. Hogaamiyaha dibadjoogga ee Belarus Svetlana ayaa ka digaysa halis ka timaada tallaabada uu Ruushku hubka nukliyeerka ku siinayo dalalka aan xeebta lahayn ee bariga Yurub ku yaala. Ninkan dalka hadda xukuma Alexander Lukashenko ayaa hore u xaqiijiyey in qaybtii ugu horreysay ee gantaale ee bambooyin nukliyeer ah uu ka yimid Moscow inay soo gaadheen Belarus. Waxyar kadib hadalkaasi, hogaamiyaha dibadjoogga ee Belarus Svetlana ayaa ka digtay khatarta ka dhalanaysa in hubka nukliyeerka ee Ruushka loo gacan geliyo kelidii taliye waalan ayay tidhi. Svetlana oo ku sugan magaalada Warsaw ee caasimadda Poland oo la hadashay warbaahinta waxa ay ku eedeysay madaxda reer galbeedka inay ka aamusan yihiin hubka nukliyeerka Ruushka ee dibadda dalkaasi loo daadgureynayo markii ugu horreysay kadib burburkii midowga Sofiyeeti ee sanadkii 1991. Madaxweynaha Kiritalska ee Belarus Alexander Lukashenko ayaa sheegay inay heleen hubkaasi xilli uu la hadlayay telefishinka dowladda Ruushka. Inta uu wareysigaasi socday waxaa ka dhex muuqanayay gawaadhi ciidan iyo qalab militari. Waxa uu madaxweynaha Belarus sheegay inay heleen hubkaasi ka hor xilligii ay filayeen. Madaxweynaha ayaa ku jawaabay, mar qura ma aanan wada helin hubka, laakiin si isku xigta ayaanu u helay, markii uu wariyuhu telefishinku weydiiyey faahfaahinta hubkaasi. Lukashenko ayaa loo arkaa inuu yahay isbahaysi muhiim u ah Ruushka, iyadoo ay Belarus kaalin weyn ku leedahay dagaalka Putin ee ka dhanka Ukraine. Lukashenko oo muuqda inuu raadinayo si uu uga cadhaysiiyo reer galbeedka ayaa sheegay in hubka nukliyeerka ee Ruushku inuu 3 jibaar ka xoog weyn yahay kii uu Maraykanku ku dhuftay Nagasaki iyo Hiroshima intii uu socday dagaalkii koowaad ee dunida. Waxa uu tilmaamay inuu hubkan u weydiistay Moscow inay dib ugu soo celiso si uu isaga difaaco waxa uu ugu yeedhay duulaanka shisheeye. Laakiin taasi waa duulaan iyo cabsi been abuur ah oo uu adeegsanaya inuu ku caburiyo siyaasiyiinta mucaaradka ah. Waxa uu xukunka hayaa ilaa 1994, isagoo oo guul ka sheegtay doorashadii madaxweyne 2020 ee natiijadeeda la isku khilaafay. Si la mid ah Ukraine iyo Kazakhstan, Belarus ayaa hubkeeda nukliyeerka ku wareejisay Ruushka 1990, iyadoo uga bedelatay heshiis ballanqaadayay in Ruushku difaaci doono Belarus. Laakiin qorshaha hubaynta Belarus waxa uu xitaa ka hor imanayaa heshiiskaasi. Madaxweyne Putin ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqay qorshaha hubka nukliyeerka loogu wareejinayo Belarus bishii March ee sanadkan. Waxa uu sheegay in Maraykanku uu Yurub ku soo daadgureeyey hub la mid ah kuwan. Waxa uu xusay in hubkan lagu wareejin doono Belarus marka la diyaariyo goobaha lagu hayn karo. Laakiin madaxweynaha Belarus ayaa sheegay inay haystaan oo ay dayac tireen goobo badan oo hubkaas ku kaydin karaan. Dowladda Moscow waxay sheegtay in maamulka hubka uu gacanta ugu jiri doono iyada. Hubka nukliyeerka ma ahan kuwa ridada dheer, laakiin waa kuwo gantaallo khatartooda leh oo loogu talagalay difaac. Alexander Lukashenko waxa uu sheegay inaanu qorshaynayn inuu Maraykanka la dagaalo ama uu la dagaalamo.
laakiin uu adeegsan doono hubka difaac oo keliya. Waxa uu intaa ku daray in gantaalada qaarkood ay gaadhi karaan ilaa 500 oo kiiloomitir. laakiin hogaamiyaha dibadjoogga ee Belarus ayaa ka walacsan aamusnaanta reer galbeedka iyada oo sheegtay in reer Yurub hadda ayna u arkin arrintan khatar cusub. Daawada qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii xilligan Arabsiya News inta warka warlamid ku kulmi doono. dhammaantood waxaan ka teganaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.